وتصالح مقضى وموجنة إن روح قفك أي كحرنتها يزبدل كي دونستو taasina ay sabab u noqon karto guulo waaweyn oo qofku nolosha ka gaaro haddii go'aankeeda uu yeesho Cumar Cartan waxa uu ka dhabeeyay doonistiisa waxna uu gaaray guulo la taaban karo dadaalkiisa shakhsiga awgi waxa uu sanadkan noqday garsooraha ugu fiican qaaradda Afrika. Two referees, male referees, Mr. Omar Atan, Omar Abdul Kadir from Somalia. Cumar Cartan marka laga yimaado biladan uu ku guuleystay waxa uu hadda cagta saaray jidka taariikh reebida sanadkan waxa uu dhexdhexaadiyay kulamo ay ka mid yihiin lugtii labaad ee finaalka Championka qaaradda Afrika oo ay Pyramids ka qaaday kooxda Mamelodi Sundowns isreebreebka koobka adduunka ee Afrika oo uu dhexdhexaadiyay kulamo ay ka mid yihiin Ivory Coast iyo Gabon iyo Senegal iyo Congo koobkii adduunka ee 20 jirada oo ay Morocco ku guuleysatay iyo tartankii Confederation Cup-ka Afrika Cumar 2018 waraysi uu siiyay Astaan ayuu ku sheegay inuu leeyahay dadaalkii geesinimadii iyo hamigii uu ku yiigsan lahaa inuu masraxyada waaweyn ee caalamka u gaaro 7 sano kadib Cumar waa garsooraha qaaradda Afrika. qof kasto no matter familku ka soo jeedo ayadoo aan loo eegaynin qofku uu yahay shakhsiyadiisa inuu waxa uu rabo uu soo bikaro waxa uu damacsan yahay hamigiisa ah inuu awoodo oo soo bikaro oo maxaa la yiraahdaa waliba sida ugu fiican uu soo bikaro